biyo-xidheenka lagu muransan yahay ee Itoobiya oo ah kan ugu weyn qaaradda Afrika ee laga dhalinayo awood koronto ayaa hadda waxa uu gaadhay meel wanaagsan. Tani waa buuxintii saddexaad ee biyo-xidheenka webiga Niil. Waxyeello uma geysan doonto wadamada hoose ee ay biyuhu qulqulaan. Biyuhu maalin qura ma istaagayaan. Itoobiya waxay ka faa'iideysanaysaa kheyraadkeeda. During the mobilization process, the water did not stop for one day. Itoobiya waxay ku doodaysaa in biyo-xidheenku uu yahay xalka keliya ee malaayiin ka mid ah shacabkeedu ay kaga bixi karaan faqriga muddada dheer haysta. Laakiin wadamada dhaca dhinaca hoose ee biyaha webigu ay u qulqulaan sida waddanka Suudaan waxay u arkaan taasi beddelkeeda. Alwaaxu waxa uu nooga yimaadaa dhulka jawigiisa sarreeya ee Itoobiya. Webiga ayaan ka kalluumaysan jiray, laakiin markii biyaha la xidhay dhinaca kale, biyaha qulqulaya way yaraadeen. Taasi waxay sababtay in meelo kale aan ka iibsanno. Maxamed Axmed iyo beeralayda la midka ah waxay aaminsan yihiin in isbeddel uu ku yimid deegaanka. Sida caadiga ah sanadkii xilligan oo kale xaddiga biyuhu way sarreyn jireen, beeralayduna way ka waraabin jireen, laakiin 3 sano ee aan soo dhaafnay way yaraadeen. Carradaasna way yaraatay, dhir badan ayaan ku weynay taas. Suudaan, Itoobiya iyo Masar waxaa ka dhaxeeya muran xooggan oo ku aadan isticmaalka biyaha webiga Niilka. Waxaa fashilmay dhammaanba wadahadallo arrimahani laga yeeshay kuwaasi oo dhowr jeer dhacay. Sanadkii 2020 ayaa Itoobiya ay bilowday in ay buuxiso biyo-xidheenkeeda. Wadamada Masar iyo Suudaan waxay cabsi weyn ka qabaan hoos u dhac ku yimaada biyaha webiga oo intooda badan ka yimaada dhinaca buuraleyda ee Itoobiya. xubno ka tirsan ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa badbaadiyay tahriibayaal kadib markii doontii ay la socdeen ay rogmatay oo bilaabay in ay ku degto koonfurta jasiiradda Lampedusa ee Talyaaniga ee badda Mediterranean-ka. Maanta oo Khamiis ahayd oo bisha August ay ku beegneyd 11 sanadkan 2022. koox samata bixin u dhashay dalka Spain iyo ciidamada ilaalada xeebaha Talyaaniga ayaa gacan ka geystay in ilaa 40 qof ay ka soo saaraan badda Mediterranean-ka si ay u badbaadiyaan kadib markii ay la qalibantay doonidii ay saarnaayeen oo alwaax ka samaysan oo ay buux dhaafiyeen. Maanta oo Khamiis ahayd xilli ay u socdeen howlo samata bixin ah, kooxdan badbaadisay oo lagu magacaabo Open Arms ayaa bartooda Twitter-ka waxay ku sheegeen in dhammaan rakaabkii ay badbaadiyeen waxaana lagu wareejiyay markab laga leeyahay xeebaha Talyaaniga. Kooxda iyo ilaalada xeebaha Lampedusa waxay u direen samata bixiyaal biyaha ku jira oo dadka ka caawiya inay badbaadiyaan. Rakaabka ayaa asal ahaan waxay ka soo jeedeen dalalka Eritrea iyo Suudaan. Badbaadintan ayaa waxa ay ka dhacday meel 25 kiiloomitir dhanka koonfurta ka xigta jasiiradda Lampedusa, taasoo Afrika u dhow dhulweynaha Talyaaniga. Waxaana inta badan ay tahay halka loo doorto howlaha tahriibka ee fadhigoodu yahay Liibiya. Kooxdani Open Arms ayaa sheegay in ay badbaadiyeen in ka badan 26,500 oo qof tan iyo sanadkii 2025. Maanta oo ay ku beegnayd 11 bisha August oo maalin Khamiis 2022, magaalooyinka waaweyn ee Somaliland waxaa ka dhacay banaanbaxyo kuwaasi oo ay codsadeen xisbiyada mucaaradka ah. Ilaa iyo hadda waxaa la sheegay in dhowr qof ay ku dhinteen dibadbaxyadan. Sidoo kale kooxaha ammaanka oo ay ka mid yihiin booliska ayaa la sheegay in dhaawacyo ay ka soo gaadheen dadkii banaanbaxayay dhagaxyaan ay tuureen xilli caawa. Sidoo kale waxaa la sheegay in magaalada Burco ay banaanbaxyo ay weli ka sii socdaan. Magaalooyinka waaweyn ee Somaliland maanta khadka ayaa laga jaray.